dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa walaac badan ka muujiyay qashin buux dhaafiyay guud ahaan xaafadaha magaalada Laascaanood iyo waliba koonayaasha magaalada taasoo ay sheegeen in xilli roobaadkan laga yaabo inay ka dilaacaan xanuuno isla markaana waxay ku eedeeyeen dawladda hoose ee degmada Laascaanood in qashinkaasi ay guri weyday shuro markasta ay ka qaado guryaha iyo meheradaha kala duwan ee magaalada waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada Laascaanood oo ka hadlaya qashinka buux dhaafiyay magaalada kaasoo ay sheegeen in intii karaankooda ay ka gureen iyagu 1960 waa dhulkii laga aasaasay magaalada ugu horeysay waa dhul qadiimi oo guryahaas ku yaaliin buuraleydaas waxa dhibaatada taagan hadaba wax taagan waxa weeye 7 sano ka hor nin Siciid oo Cabdilla yiraahdo ayaa naga qaaday kudaafadaas ayaa kudaafada naga qaaday maamulkii hore iyo kan midna nagama qaadin cashuur baa laga qaadaa guryaha magaalada dawladda hoose waxba waa u sheegay 7 jeer baan u sheegay waan u sheegay maayarka waan u sheegay marar muxina waa la qaadi doonaa haddana waxa ka dilcay waa waqti kuleelaa dirxi oo aad aragtaan intaanu taagannahay maaha waa si ilaa si jeedka magaalada xaggan ay sii jirtaa waa bartamaha caalamka waxaan u sheegnay intaan daacun ka dilaacin iyo bilaadanimada in la ka qaado maamulka waxaan u sheegnaa dadka xaafadaha ama halkan degan marra ma isku dayeen in iyagu balsi iska qaadaan waa gubaniya ka iska goosa saas daqiiqa baxayo kale dumarada xaafadaha waa meel dil ka soo baxay halkaas iyaga gubaya sidaas ay xaafadu isaga ururiyaan marka ayaad ku eedeynaysan inay wax ka qaban waayeen dawladda hoose Laascaanood iyo maamulkiisa ayaad ku eedeynaysan bilkaws marra ma kala sheegteen in wax laga qabto waanu kala shaqo waa ku aragna waa kala shaqo waxaan naga qaado 3 jeer nin baa nagu yidhi annagu lacag aan ku guro ma hayno shidaal baan soo dirayna shidaal iska rogooy baa xogayuhu nagu yidhi annagu wax dhaqaale badan ma hayno laakiin shidaalkaanu idinka bixinayna mana dhicin dadkuna wuxuu iskaga bixi badoo ciyaalada yaryar ardayda malcamadaha ka dhigtay halkaa wada hogay bugaagta sita ilaa karintaas ay sii socotaa cid kale oo nagala hadashay maba jirto naga qanacsan ninkaas labada kalmood yiri hadda odayaashii hadda maxay soo jeedinaysaa markaa tala ahaan ama wax garad ahaan adoo ka hadlaya maxaad soo jeedinaysaa in qashinkan laga yeelo qashinka in la ka qaado la ku caawiyo waxaan dhibaatada taagan inta la ka daryeelay hadii maamulka gobolka maamulka dawladda hoose dabcan shaqo kule ma jirta ayada taalaftigeeda mid aad contribution aad sameeysan inaad gudi ahaan u sameeysan xaafadda sidii bal lafteenu aad soo qaadi lahayn qashinka maadaama ay ku eeg haddaan ku guda jiraa qaabkii aanu isaga qaadina wax uga ururinayn xaafadaha bal hadda gacanta ku haynaa ururina afadu in badan bay intay soo qaaday shidaal gaas baasiin in badan bay meesha waan ku jiray markaan wax naga qaadan weyne waanu gubi jiray kudaafada in badan baanu gubnay in badan baanu lacag iska ururinay in badan laakiin waxay u baahantay wixii baa waxay noqdeen wax fara badan magaalada inta laga soo qaadaa meesha la dhigaa marka waxa weeye waxaanu u baahanahay oo dadweynuhu u baahan yahay xaafaddu u baahantay waxaan in laga qaado waa ka awood badatay xaafadda waxaan waa ka awood bateen waana wax lagu soo guray marka waxaan u baahnay dhulkaad arkayso sees biidhan baa ku aasan dhagax biidhan baa ka buuxo kudaafadda aqrisay kudaafadda ilaa sii jeed bay u dhaadhacsantay ilaa sii jeed bay u dhaadhacsantahay marka waxaan u baahanahay oo maamulka u sheegayna oo dadweynaha u sheegayna magaalada dhexdeeda ka daran in laga guro magaalada qashinka laga guro maadaama magaaladu laga qaado cashuur dakhli ay bixiso magaaladu waa in laga guro nadaafadda iyo kudaafadda waliba marka naqu jiro dee wax badan baa soo baxa dirxaa soo baxa duqsi baa soo baxa kareecaa soo baxda dareenka dhashan baa laga yaabaa in shuban ka bilaabana waa suuragal marka waxay u baahan tahay in laga nadiifiyo magaalada qashinka iyo qununka
way gubeen waa ardaydii bugaagta sheegtay waa kuwaas maalin walba waxaa